saad ogtihiinba maalmahan dood baa tiktok ka socotay doodba lama dhihi kare bismillaahir rahmaanir rahiim hawadaynaga qabsatay wiilkii ahaa aadan sahan hadalkiisii dood ka bilaabatay oo aadan markuu hadlaybu hadalkiisa ku bilaabayba dad badan inay isku waayi doonaan doodan oo dad badan yacni hadalkan ay isku waayi doonaan dad badan ay wax ka keeni doonaan dadkii hadalka ka keenay marka hadaladiisa waxaa kamid ahaa nin anu hadalkiisa aan la yaabay oo yidhi niyow mar walba waxaad kusoo celcelinaysaa aadanow waxyaabo fara badan oo diinta islaamka dumarka ay siisay oo xaq oo ay lahaayeen uu dhaqanka Soomaaliyeed ka duudsiyay uu dhaqanku u diiday bal waxaad ii sheegtaa hal ama labo yacni bal midlan waxaad ii sheegtaa saddex shay oo xaq gabdhuhu ay u lahaayeen oo gabdhuhu si ay diintu ay siisay gabdhuhu xaq u lahaayeen oo Ilaahay uu ogolaado sharciga islaamka yacni uu ogolaaday laakiin se dhaqanka Soomaaliga uu u diiday oo laga duudsiyay oo aan la siinin haddii diinta si sax loogu dhaqmeeyo yacni gabdhuhu waxaas ay xaq u heli lahaayeen horta diinta islaamku waxa uma duudsido qof kasta xaq buu leeyahay cid kasta xaq bay leedahay gabadha xaq bay leedahay wiilku xaq buu leeyahay waalidka caruurta dariska dadka jidka iskaga hor imanaya xataa qofka islaamka walaalka ka hor yimaada xataa wadada isku daw maraysaan xaq buu kugu leeyahay haddii xaqaqaas la ilaalinayo qof kastana diinta uu ku dhaqmayana halka maanta aan taaganahay Soomaali hadaan ahay ma baynaan taagnaaneen waxa tiri hal shay ama laba shay hala ii sheego ama saddex shay buu yiri wuxuu saddex shay oo yacni diintu ay gabdhaha siisay dhaqanku u diiday bal hala ii sheego saddex shay mise 300 oo shay baa lagu sheegi karaa xataa 300 oo shay baa lagu sheegi karaa diinta islaamku cidna mayna dulminin gabdhahana xaq badan bay siisay xaqaaqa diintu ayna siisay marka anagu dumar hadaan ahay ee dhaqanku uu naga duudsiyay aad bay u badan yihiin saddex baan kaaga sheegaa sooma aha gabadha marka la guursanayo midlan waxay xaq u leedahay meher Soomaa diinta islaamka meher bay gabadha siisay oo sharcigu uu u baneeyay gabadha waxay xaq u leedahay sida marka loo meheriyo wax alaale wixii ay sheegatay meherku ahaa lagu heshiiyay in la siiyo ma siiyaan ragga Soomaaliyeed dhaqan waxaan ka dhiganay inagu Soomaali hadaan nahay gabadha in la yiraahdo meher ha sheegato oo iska sheegato waxay doonto heer maanta gabdheen waxay marayaan 500 gram iyo 400 300 gram dahab ay sheegtaan waayo waxay og yihiin inay cidna siineen iyaduna waxay ogtahay inaan la siineen isaguna wuxuu og yahay inuu na siineen haday rabto 1 gram bay iska sheeganaysaa gabadhii marka meherkii ninkii way iska galahaanaysaa 20 sano 25 sano 30 sano haday wada joogan xataa ilaa qiyaamul qiyaamaha way ku lahaanaysaa maalinkay isku dhacaan baa laga yaabaa inuu yiraahdo haday kala tagayaan meherkaagii cafi waayahay meherkaagii iyo cafi aan ku fure haday dhacdo yacni nin Soomaaliyeed oo meher gabadhiisa xaaskiisa asiiyay way jiraan rag siiyay laakiin waa hal iyo laba waa dhif iyo qaliil haddii sharciga sida saxda loogu dhaqmayo gabadha marka sida loo meheriyo wiilku meherkeeda siin lahaa wax alaale waxay ku heshiiyeen buu siin lahaa faraha ka saari lahaa taas waa mid waxa jira wax la yiraahdo dumaal hadda xataa yacni gobolada qaar way ka jirtaa baadiyaha way ka jirtaa inkastoo dhaqan hore yahay oo gabdhaha lagu qasbo inay gabadha ninkeedu markuu ka dhinta ay guursato ninkeeda nin la dhashay ama in adeerkii ama uu adeeruhu adu yacni familkii ninka oo reerka ninka dhintay reerkii uu ka dhashay waxayba soo istaagayaanba gabadhan annakaale geel baan kala baxnay xoolaan kala baxnay annagaale marka gabadhan waa inay guursataan nin anaga naga mid ah haddii kale sidaa unbay usoo taagnaanaysaa weligeedii allaheed nin kale ma guursan karo hadduu guursadana madaxa laga tooganayaa marka gabadha in la jojobo nin ayna rabin xoog loogu guuriyo waa wax dhaqanka uu keenay maaha waxay diintu keentay gabadha diintu xorriyad bay siisay ninkeedu markuu dhinto ninkay rabtay guursan kartaa haday rabto iska joogi kartaa xaqaas dhaqanka naga qaaday oo naga duudsiyay waxyaabaha dhaqanka uu keenay waxa kamid ah marka gabadha midlan markay gabadh tahay yar tahay gurigooda ku nooshahay wiilka walaalkeeda amiir camal buu u noolyahay iyadana adoon camal bay u nooshahay iskuulka iskala imanayaan wiilka gabadha iyagoo wada socday iridka guriga ka soo galayaan wiilku qolkiisa intuu galo buugta dhigto ayar iska seexanaya sarar buu iskaga seexanaya gabadhuna jikada galaysa markaas la leeyahay qadada ku dhaqso wiilku wuu daahsan yahay meel buu aadi lahay wuu gaajaysan yahay hadayadu way la socotiyaa may hurdin way isla socdeen subaxii way kacaysaa 5 barka 5 toosaysaa 5 barka jikada galaysaa weel bay dhaqaysaa cuntay karinaysaa isaguna wuu iska hurdaa hadhow markuu soo kaca laga yaabaa inuu ku canaanto ku dilo haduu rabo uu ku dilo maxaad dharkayga iigu feereen weyday maxaad dharkayga iigu dhaqi weyday maxaad waxaan iigu sameyn weyday maxaad saan iigu yeeli weyday maxaad qolkayga iigu hagaajin weyday abi hooyadina raali bay ka yihiin wiilka dharka u dhaq wiilka qolkiisa u hagaaji wiilka cuntada u geey iyagoo iskuul iskala yimid oo isla socday bay gabadhuna jikada galaysaa isaguna qolkiisa iska seexanay halkaas iska jiifaya hadhowna waa lagu canaanaya gabadha lagu qaylinaya wiilashaad cuntada ka daahaysay qolka aad u hagaajin weyday dharkiibaad u dhaqi weyday haddii waxaas uuna dhaqan ahayn oo sharciga lagu dhaqmayo wiilkuna waxa laala wuxuu u baahan yahay isaga qabsan lahaa
gabadhuna waxay u baahan tahay bay qabsan lahayd cid u shaqaysa iyo cid adoonsataa midna maba jirteenba hooyada umusha ee 12 caawa ilmaheeda yarkaa la soo jeedaysa ee dhafraysa subaxii markay soo kacdo ninkeedu quraac buu ka rabaa subaxii caawa dhan way soo jeeday ilma yarba saas ula fadhidayaa kama nasinayo lama haynayo subaxii markuu soo kacana wuxuu leeyahay quraacdeedii aaway quraac ma sameeyeen anaaba rafaadsan oo dhafarsan oo ilmihii ba iga seexan waayay haday tiraahdo wuu xanaaqay isagoo gafuurka taagayuu baxaya oo la maxay naagtan cunto iima sameeyayso maxay iima qabanayso waxan iima hagaajinayso oo wis xanaajinaya sababtoo guriga hooyadii aabihii buu ku soo bartay in loo adeego amiir camal uu jiifo gabadhana adoon camal ay ugu adeegto gabadhana gurigii hooyadeed markay joogtay walaaladeed u shaqeyn jirtay isna walaaladii baa u shaqeyn jiray waa wax dhaqanku uu keenay diin hadii lagu dhaqmayo ninku gabadha ilmaha hameen isaga hayn lahaa hameen iyada hayn lahayd cuntadana way ku tookaysan lahaayeen hawsha gurigana waa lagu tookaysan lahaa shaqadana waa la isla qaban lahaa rasuulka kaleey salaatu wasalaam cid ka fadli badan miyaa jirta gurigiisa markuu joogo shaqo qaban jiray arigiisu maali jiray oo marihiisu tolin jiray oo shaqo qaban jiray haweenkiisa wuu caawin jiray marka waxyaabaha dhaqanku uu keenay ama dhaqanku uu gabdhaha ka duudsiiyay ee diinta islaamka ay siisay walaalo way badan yihiin gudniinka fircooniga kamida qofka islaamka ah qofka ibni aadamka ah jirkiisa iyo xubnihiisa xubin kasta qiimo ay leedahay mag bay leedahay qisaas bay leedahay ilmo yaro saqiiro 7 jir ama 5 jir ama 6 sano 10 sano aan gaarin ba inta la soo qabto la qasho la bireeya jirkiisa saas loo googoynaya waxaas dhaqanka keen xagee fircoon uu diinta islaamka kaga jira meel uu kaga jira ma jirto fircoon buu ka yimid baa lagu leeyahay ma garanayno Soomaalida fircoon waxay isu yihiin bari baa wala laha xabiisiin marka waxyaabaha dhaqanku uu gabdhaha baday laakiin sidiintu hadii lagu dhaqmay ay heli lahaayeen ama waxyaabaha dhaqanku gabdhaha uu ka qaatay ee diinta islaamka ay siisay oo ogolaatay aad iyo aad bay u badan yihiin gudniinka fircooniga kamida meherka kamida dhaxalka gabdhihii hore loo diidi jiray baa kamida oo la dhigi jiray nin bay u tarmaysaa nin baa guursanaya reehebel bay noqonaysaa xoolaha nin bay u geynaysaa waa kamid arintu aadan sahan ka dhawaajiyay baa kamida gabadhu haday nin ajnabi ah guursato ilmaheedu wadanka xaq kuma leh laakiin wiilku gabadh ajnabi ah sheegtay gaal dhashay haduu guursado ilmihiisu wadanka xaq bay ku leeyihiin wiilka gabadha wadanka way u sameeyeen marka gabadha iyo wiilku guriga aabahood iyo hooyadood baaba lagu soo kala takooray oo gabadhana la soo dulmay wiilkana la soo koolkooliyay Soomaa wadankuna gurigii uu ka bilowdaa Soomaa wadanka dhanba gurigu ka bilowdaaba guriga marka la isku dulmiyaa wadankana la isku dulmiyay markaas magaalo la isku dulmiyay wadanka dhan markaas la isku dulminay marka hadii diin lagu dhaqmayo oo diin baa si sax loogu dhaqmayna Soomaali hadaan hay diinta hadaan sida ay tahay ugu dhaqmayna horta maanta meesha aan taaganahay ma baynaan taagnaaneenba meel ka sareysa oo ka wanaagsan oo qurux badan baan taagnaan lahayn marka waxa fiicnaan lahayd dadkan yaani ku soo marmarsiyoonaya dumarka marka wax laga sheegaba ama dumar la yiraahdo dumar la soo hadal qaadaba dadka diinta wata dumarka dulminaya diinta islaamka dumarka dulminaysa ee dadka qaar yar oo iska masaakiin oo maangaaba ka dhaadhicinaya gabdhaha inay diintu dulmiday ama diintu wax ka qaadatay ama diintu wax u diiday waxa wanaagsanaan lahayd يعني dadka inta aqliga leh inay la hadlaan baa fiicnaan lahayd diintu gabdhaha waxba uma diidin qof kastana xaq buu leeyahay qof kasta xaq buu leeyahay cid kasta oo bini aadanna xaq bay leedahay diintuna qof walba oo ama mustadcafa ama liita ama cid walba yani way u wiiltaa cid liidata boqorka miskiinka faqiirka taajirka waa la wada sameeyahay ee diintii baan lagu dhaqmaynin marka hadii dhaqanka Soomaaliyeed gabdhaha uu dulmin jiray waxa dulmiyay gabdhaha dudsiye waa dhaqankeena ma aha diinta